قلب وناكسن قلب وناكسن دمان أصحاب تملك استجوكتان قلب وناكسن halka aan joognaa waa Bastille fagaaraha caanka ah taaladaas u jeediin waa calaamada maanta wadanka Faransiiska waxa loo dabaaldegayaa maalinta qarannimada dalka Faransiiska waa fête nationale waa feetka qaranka amba maalinta munaasabada qaranka dalka Faransiiska waa maalintii Bastille كنت تدوب سديتن يسقالكي سيدا بلانت أهد أصحابتا وحان إذين بلان قاضي إنا إذين سو قدبين دونو إنا إذين سو قدبين دونو مانتا ميلاها قار شالي إذين بلان قاضي إنا إذين سو قدبين دونو ميلاها مهم كأمبا عانكا قرنمي دالك فرنسيسكا تدوبي لباتن waxaa ku qoran 7 Juulaay 1830 yani halgankii soo bilowday meeshan waa fagaaraha loo yaqaan Bastille waa calaamada ay iska leedahay waa fagaaro aad iyo aad u weyn waa fagaaro aad u weyn maanta waxay ahayd munaasabad weyn ee dalka Faransiiska lagu xusaayay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa saakay wuxuu ka qayb galay xaflado goos ah oo kala duwan oo ka dhacay dalka Faransiiska gaar ahaan Champs-Élysées waxaa jira meelo lagu xuso maalinta qarannimada dalka Faransiiska waxaa xusad mudan gawaarida waxaa ku dhigan calanka Faransiiska basaska meel walba waxaa ku dhigan calanka Faransiiska sidaad arkaysaan gawaarida calanka Faransiiska ayaa ka lusha waa maalinta qarnimadooda sida idin sheegay meelaha muhiimka inaan idin soo gudbin doono oo ku saabsan taariikhda wadankan amba documentary barnaamijyadeeda waxay u badnaan doonaan barnaamijyo documentary ah ama xusuus aan ka diyaarinayo aan ka duubi doono insha Allah meelo kala duwan ee dalka Faransiiska ah halkaas waa tiyaatar way leeyihiin Bastille oo ah tiyaatarka weyn fagaarahan saakay waxaa jira banaanbaxyo kala duwan oo shacabka ay dhigayeen magaalada way kala xirneed baabuurta isku socodka xataa aad ayuu u yaraa marka hadda si fiican ayaan idin arkaa waxaan u jeedaa asxaabta Umar Shidane xafladda kowgluudi Soomaaliya aawe waa sax wallahi lama dhigin sorry wallahi waa imaan lahay ma fahantay kowga luuliyo lama dhigin waxyaabahan hadda idin kugu soo gudbinayo munaasabadahan waxay tahay sibal maalintaas yani Soomaalida inaan kaga dayano wanaaga wadan kasta oo hor u maray dhanka wanaaga inaan kaga dayano sababtoo ah qarannimada Soomaaliya waa muhiim wadanka Faransiiska lagama dhigin sanadkan haddii laga dhigi lahaa si live ay idin soo gelin lahay marka waan ka xumahay lama dhigin wadamada qaar laga dhigay waxaan filayaa in aad looga dhigay dalka Sweden Norway Denmark Mareykanka meel qaar laga dhigay America yani Faransiiska lagama dhigin waa marmar waa laga dhigaa laakiin dalka Faransiiska xoogaa waxaa ku yar maxaan ku raadaa magaalada Paris laga yaabo gobolada in laga dhigay laakiin intaan ka warqabo lama soo bandhigin ma fahmaysiin aad aan u jeclaa wadankayga Soomaaliya ha noolaato wax kasto gaaro waxaan leeyahay Soomaaliya guul 1889 meeshan bal taariikh yar aan ka siiyo meesha calanka ku dhagan calaamadaas ay leedahay waxa ku dhagan taariikh fog ayaa ku xardhan magacyo ayaa ku dhigan sidaad u jeedaan bal aan soo dhaweeyo waxaa ku dhigan magacyo iyo taariikho ayaa ku xardhan birtaas dheer si bal aad u aragtaan ilaa meesha dusha sare calankii ayaa lagu xardhay waa calaamada Bastille marka meeshan waa loo soo halgamay wadankan wuxuu ku jiri jiray waxa loo yaqaano boqortooyo oo kale talis ayaa ka jiri jirtay sida shalay idin sheegay
boqortooyadaas ayaa maxaan ku yiraahdaa ka talin jirtay waliba waxa la ii sheegay gabar inay ku jirtay dadka ayaa lagu xirxiri jiray meeshaan qalcad weyn ayaa ku taali jirtay qalcad weyn oo dadka lagu xirxiray ayaa ku yaali jirtay boqortooyada looga taliyo meelo kalena waa looga talin jiray boqortooyadaas oo aan ayadana idiin soo gelin doono insha Allah tacaala marka meelaha ciidamada ayaa jooga waa la baarayaa ammaanka dadweynaha aad ayaa loo baarayaa maanta oo kale xalay kumanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa magaalada lagu daadshay habeenkaas aad ayaa ammaanka loo ilaalishaa sababtoo ah waa maalinta qarannimada waxay ka wanaagsan tahay maalmaha kale aad ayaa yani u dhowraan qarannimadooda maalintaas waa fagaaro weyn oo isku soo baxa lagu sameeyaa marka taariikhdan bal wax yar dib aan kugu noqdo 1789 ayuu ahaa maalintii la xoreeyay Bastille waa maalinta xornimada Bastille waa maalinta shacabka Faransiiska ay heleen xorriyadda waa maalintii ay iska tuureen heeryadii xukuumaysay oo kala taliska ahayd waa maalintii loogu magac daray liberté oo ah xorriyadda liberté égalité fraternité waa xornimo midnimo sinaan iyo cadaalad Soomaaliya saasan I think meeshaan dheldheel kuma imaanin xorriyaddan haystaan yani waxay isaga tuureen halgan dheer ay u soo galeen shacabka maalintaas 1789 dadweyne kacdoon badan ku jira ayaa soo weeraray meeshaan waxay ahayd qalcad weyn ayaa ka dhisneed taaladan markaas kama dhisneen taaladan waa waxa loogu talagalay xusuus laakiin dhismo weyn ayaa ka jiray oo kala talis ah oo boqortooyo ah oo dadka xirxiri jirtay marka wixii markaas ka dambeeyay waxay noqotay Faransiiska wadan jamhuuriyadda madax bannaan xeerkoodii waxa la ansixiyay 1789 maadaama oo la xoreeyay 1780 ayaa xeer sameysteen xeerkaas oo ah in midnimo iyo xorriyad inay sameystaan oo ay aad macnihii ay u yeeshaan wadan dimuqraadiyad ah federaal ayay sameysteen maalintan federaal ayay sameysteen federaalkaas oo ah ismaamul goboleedyo hoostaga dawladda markaas la dhisay markii xorriyadda qaateen hadda annaga waxaan sameynaa Soomaaliya markaan nahay xorriyadda qiimo gaar ma siino maadaama ay yihiin wadan dadkooda wadan kasta dadkiisa ayaa markasta waan dhahaa erigan wadan kasta dadkiisa ayaa ka dhigo wax ka dhigo haddii wadankaaga aad jeclaatid yani maanta haddii wax yar loo geysto meel yar la taabto qof kasta ugu soo horeeya ayaa dawladda wacaayo ma fahmaysaa marka waa dad jecel nabadda waa dad isku tashtay waa dad soo maray dhibaatooyin fara badan annaga hadda dhibkaas maba soo marinbo dhibaatooyinka wadamadan ay soo mareen barnaamij dagaalkii labaad ee adduunka dhibka uu soo maray wadanka Faransiiska ma la xisaabin karo waa dhibaatooyin aad u badan halkaas tareenaha mara metrooyadii ayaa mara waxaa mara metrooyadii tareenadii maanta meeshaan banaanbax ayaa ka jiray gawaarida nadaafadda ayaa la soo dhigay meel kasta oo nadaafinaysa waa la nadiifiyay banaanbaxyo ayaa ka dhacay meeshaan isku soo baxyo ayaa ka jiray laakiin dawladda waxay ku ciidaysay amba madaxweynaha iyo gruubka dawladda waxay ku sameeyeen xaflado soo bandhigeen Champs-Élysées sida u taqaaniin iyo fagaarayaal kaleeto oo lagu xusuusto halgamayaashii wadankan u soo halgamay ciidanka u badnaa meeshaan waxaa lagu furtay maalintii furashada meeshaan waxay ahayd maalin ay dadweyne aad u careysan isku soo baxeen ya dadweynahaas careysan markay soo baxeen waxay sameeyeen weerar ay ku soo qaadeen xukunkii kala taliska ahay muddo laga joogo yani
qarnigii 17aad dhamaadkiisii qarnigii 18aad 19aad 20aad meeqa qarniyaa ka soo wareegtay xisaabiya dhowr qarniyaa ka soo wareegtay marka waa maalin xusuus u leh wadankan waa maalin xusuus u leh dadweyne fara badan ayaa isku soo baxay hadda maxaan ku yiraahdaa meelo kale lagu dhigay halkan laakiin saaka ayaa la isku soo baxay baabuurtii xayirneed tareenadii xayirneed halkan tareen iyo baabuur iyo wax dhan way xirnaayeen saaka way xirneed marka waxaa halkan iga soo horjeeda waa tiyaatar weyn oo xusuus leh tiyaatarkaas xusuus weyn ayuu u leeyahay shacabka Faransiiska soo dhawaada ayaan leeyahay barnaamijka mar kale ayaan idin dhamaystirayaa insha Allah waa idin wadayaa waxaa idin leeyahay galab wanaagsan soo dhawaada waxaa jira barnaamij aan wado oo ah barnaamijkaas oo ah barnaamij documentary ama taariikhda aan ka sameyn doono wadankan inta aan joogo insha Allah taala barnaamijkaas oo goos ah oo qaybo kala duwan aan sameyn doono meelaha muhiimka ah yani ma ahan inaan leeyahay waa faan iyo wadana horumarsan iyo may waa waxa waaye inaan ka run sheego wadan kasta yani wax qabadkiisa iyo dadaalkii uu muujiyay meelaha qarnimadiisa iyo meelaha muhiimka u ah wadan kasta wuxuu leeyahay meelo qadiimi ah marka meelaha qadiimiga ayaan idin soo bandhigi doonaa insha Allah taala cirka maanta qorrax ma jirto waa daruuro ayuu leeyahay dadkii ayaa isku soo baxay gawaarida imika way furantay saaki magaalada way kala xirneed marka hadda waa la furay magaalada waa socotaa socodku bilowday waa maalin waxa la dhahaa maalinta Bastille waxaa kaloo halkaas ku yaala library weyn ayaa ku yaala waa library weyn halkaas tiyaatarna wuu ku dhex yaalaa library waaye halkaas waxa yani meeshan xusuus gaar ah ay leedahay marka loo eego wadankan dadka wadankan iskale marka loo eego waxay leeyihiin xusuus gaar ah maalmo ay xusuustaan maalinta qarannimadooda waay maanta waxaa kaloo jira maalmo oo maalinta dagaalkii labaad adduunka uu dhamaaday markuu dhamaaday waxaa jira intuusan dhammaan dagaalkaas intuu socday dhibaatooyin fara badan ayaa soo wajahay wadankan burbur fara badan ayaa soo gaaray meelo badan ayaa hubkii lagu dagaalamay ilaa hadda ay ku aasan yihiin xabadihii iyo wixii qashinka ka baxay marka waa maalin xusuus ku leh wadankan marka xusuusyo badan ayay leeyihiin dagaalkii labaad adduunka sidaa ka warqabtaan taariikhdan ayaa horeysay taariikhda Bastille waa taariikh aad u fac weyn waa maalin aad u weyn dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaan maalintaas oo boqortooyadii la soo weeraray boqortooyadaas oo ku maamuli jirtay awood kala talis ah marka awooddaas waxay lahaayeen fardo waxay lahaayeen qalabka dagaalka oo qalabkii hore dadka isticmaali jireen qof allaale qofkii ka hadla waa la soo xiri jiray qofka markuu dhibaato ama qofkii ka hadla boqortooyadaas waa la soo xiri jiray marka maalinta Bastille cirka daruuro ayuu leeyahay maanta
waa maalin caan ku ah waddankan waa maalin ay aad iyo aad u qadariyaan maalin aad iyo aad u qadariyaan soo dhawaada ayaan leeyahay galab wanaagsan galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan gawaaridu way isku socotay waa meel aad business yani meel aad u mashquulsan waaye meeshaan ya waa meel aad u mashquulsan gawaarida iyo dadka iyo saxmadda maanta gawaaridu way istaagtay gawaari ma shaqaynaynin way shaqaynaysa laakiin halkan ma soo maraynin baabuurta waa laga joojiyey maadaama munaasabadda meeshaan ay ahayd munaasabad meel dadka isku soo baxayeen ay aad u jeclaayeen marka galab wanaagsan habeen wanaagsan intay u tahay intay duhur u tahay duhur wanaagsan ayaa idin leeyahay marka waan salaamayaa sideed u aragtaan barnaamijyadan aan idiin wado qof ayaa soo weydiiyey aawo kowga luulyo waa run kowga luulyo aniga waan taageersanahay yacni barnaamijyada waddanka xorriyadda maalmaha waddankayga aad ayaan u jecelahay marka maadaama waddankayga aad u jecelahay soomaaliya waxaan leeyahay ha noolaato meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato ya waddankan wuxuu dhahaa viva faransa viva la france yani ayay dhahaan annaga sidoo kale waxaan leenahay viva faransa maadaama aan joogno soomaaliyan ha noolaataan leeyahay galab wanaagsan meel kastoo caalamka ka joogtaan waan idin salaamayaa marka waa meel aad u qurux badan berigii hore meeshaan waxay ahayd qalcad sidaan idin sheegay calaamado kala duwan ayay lahayd ma lahayn dhismahan hadda gadaalaa laga dhisay xorriyadda kadib ayaa la dhisay waa la cusboonaysiiyaa sanad kasta waa la cusboonaysiiyaa marka waxaa jira markii ugu horreysay meeshaan boqortooyada ay ka talinaysay waxay ahayd boqortooyo kala talis ah boqortooyo bidaa'i yacni waqti fog waad dareemi kartaan dhowr qarniyaa ka soo wareegatay marka waan idin salaamayaa taariikh ahaan marka taariikhdan dib loo raaco taariikhda waddankan waa midda ugu qadiimsan amba ugu jecel yihiin marka taariikhaha adduunka loo fiirsho taariikhda waddankan waa taariikhda aadka u jecel yihiin waxaa fuula diiq ya ma maqasheen diiqa faransa calaamadda waxay ku tahay diiqa ya halkaas diiq ayaa fuula diiq ayaa ku sawiran diiq halkaas ku sawiran ma arkaysaan diiqa faransa maqasheen sooma ciyaartooyda maxaa la yidhi diiqa faransa waa meel aad u qurux badan yacni diiqaas wuxuu ka dhigan yahay calaamadoodii ay yacni ku xusuustaan yacni waa calaamadda taalada dusheeda iyo diiqa suran yahay ma fahmaysid waa taalada dusheeda diiqaas ayaa lagu dhejiyey magacyo ayaa ku xardhan waxaa ku xardhan taariikhyo kala duwan 1830 ayaa la dhisay 1830 ee taaladan la dhisay yacni waqtigii ay xorriyadda qaateenna wuxuu ahaa 1789 yacni taalada waxyaabo kala duwan dhismooyin badanaa ka dambeeyey marka dhismahan wuxuu ahaa dhismihii waqtigii la dhisay libaaxna wuu ku sawiran yahay qoraxdana way sii dhacaysaa qorax ma dhacayso ma dhowo laakiin maanta daruuro ayaa jiro alxamdulilah qorax ma jirto maanta shalay aad ayuu magaalada u kululeed marka dadku way isku socdaan fagaarahan waxaa ku hareereysan basaska ayaa mara tareenada ayaa mara waa meel muhiim ah
meel muhiim u ah waddankan si bal aan u ogaano hareeraha dhan waxa ka jira waa hareeraha waddanka meelaha hareeraha gawaarida waxa ku dhagan calanka Faransiiska ku dhagan marka maanta oo kale xalay ilaa shalay baabuurta waxa lagu dhajinayaa calanka Faransiiska waxay muujinaysaa maalinta qarannimada waddanka muujinaysaa soo dhawaada si haddii aan dib u noqono marka la isba bardhigo waddankeena iyo waddankan waxyaabo badan ayaa u dhexeeya farqi badan waxa u dhexeeya waxay tahay waddaniyadda hadda Soomaaliya 1950kii ilaa 40kii markaan dib ugu noqono waxay lahayd waddaniyiin Soomaaliyeed oo aad dadka u jecel oo يعني ودنكooda jecel oo qarnimadooda jecel farsamo halkan gobonimo doonka waxaan ka xusi karnaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud يعني ururkii SYL sidoo kale ururkaas koonfurta Soomaaliya ayuu ka jiray gaar ahaan magaalada Muqdisho waqooyiga Soomaaliya waxaa ka jira ururkii SNL ururkaas يعني asagana ka soo halgamay sidii xorriyad dib ugu helay Soomaaliya gobolada waqooyi Soomaaliya u jiray marka halkan dheer ay u soo mareen يعني labadaas qaybood koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya marka hogaamiyaashii waqtigaas jiray maadaama aan ka faa'iideysanayo xorriyadda dalka Faransiiska maanta xorriyadda Soomaaliya ayaan rabaa bal inaan يعني dib u raaco xorriyadda Soomaaliya rabaa dib inaan uga sheekeeyo معنيه وقتي سومالي حريد قادني سي عبد الله عيسى محمود سدا أكتيه وهالجماوين أو وطن كان وين كسوقاتي رئيس وزراء كسر نقضي الدولة دي داخلية ذا يكون سجال بقول يو كنتم كي إلا اللي حدن كي لقيسوا جاري هرتيدا رئيس وزراء يوكا ها دولة الطلياني جاية معمولة يسي كونفورتا وقوي جن إنجليز كايا معمولة waxaa jirtay qaramada midoobay markay aadayeen asaga iyo Maxamed Ibraahim Cigaal Allah yarxam labadooda yani halkan dheer ayay u soo galeen markay tagiyay qaramada midoobay waxay ahayd halgan lagu gaaray iskaashi iyo midnimo iyo waxa lagu gaaray iskaashi iyo midnimo iyo waxa lagu gaaray daacadnimo waxay ahaayeen dad isdhaarsaday ma jirin waxa hadda qoqobka Soomaaliya ku dhex jiray kama jirin markay tagaan qaramada midoobay Maxamed Ibraahim Cigaal iyo Cabdullaahi Ciise iyo nimankii waagaas halgamayaasha ahaa markasta qarnimada Soomaaliya ay ka hadli jireen iyagoo uga hadli jiray shuruud la'aan midnimo Soomaaliyeed inay helaan inay xorriyad helaan marka maanta ma muuqata ayaan dhihi karaa Soomaaliya ma muuqato laakiin walow waxa la yiri caana daatay dabadooda ayaa la qabtaa Soomaaliya maanta waxoogaa way istaagtay inkastoo waddanka Soomaaliya maanta aan dhihi karin waa wada xor yani waddankii uu ajnabi u joogo Soomaalida dhexdeeda ay kala qaybsan yihiin maamul goboleedyo ay ka jiraan waa maamul goboleedyo ay ka jiraan maamul goboleedyadaas oo marmarka qaarkood dawladda aan taageersaneen yani waxa ka fiican ayagoo Soomaaliya midoobaan federaal oo kale hadda waddankan federaal uu soo sameystay waqtigaas oo halgankan hadda aan ka sheekeynayo 1789kii dawlad federaal ay sameysteen dawladda federaalka ay sameysteen waxay ahayd si bal waddanka ay u gaarsiiyaan xorriyad dhab ah waddanka cagiis isku istaago marka federaalka macnihiisa horta Soomaaliya federaal ahaan kuma fiicno Soomaaliya waxay ku fiican tahay
inay samaystaan siyaasad midaysan oo dimuqraadi ah inay samaystaan sababta federaalka waxaa samaystay inta badan wadan ay dadkiisa kala duwan yihiin marka wadan ay dadkiisa kala duwan yihiin for example Ethiopia kale federaalku ay ku fiican tahay sababtoo ah waa Ethiopia wadan oo Soomaalida goboladeeda qaar waxaa ku nool dad kala duwan qowmiyado kala duwan ayaa ku nool okay marka la dib aan u noqono bal taariikhdii aan ka sheekeynay taariikhda Soomaaliya aan ka sheekeynay Cabdullaahi Ciise Maxamuud iyo Maxamed Ibraahim Cigaal Allah u naxariisto iyo raggii 13 leegada iyo raggii gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo caanka ku ahaa ayagana dhaqdhaqaaqii waqooyi SNL la dhigi jiray xisbigaas badanaa Soomaaliya hadda lagama sheekeeyo halgankaas gudaha Soomaaliya loogama sheekeeyo inta badan I don't know idaacadaha inay ka sheekeeyaan marka Soomaalida badanaa taariikhdooda yani aad kor uma soo qaadaan waxaan filaa inaan si aad oo xoogan loogama hadlo loogama sheekeeyo taariikhdaas waa taariikh weyn oo Soomaaliya aan la dafiri karin xoriyadii 1960kii Israaciil labada gobol waqooyi Soomaaliya la dhihi jiray marka inkastoo maanta hadda xoogaa gobolada qaar ay ismaamulayaan haddana nabad meelaha qaar waa nabad marka waxaan leeyahay xusuustaas yar aan idin taabtay Soomaaliya galab wanaagsan ee leeyahay mar kale soo dhawaada marka waxaan u maleynaa maanta taariikhdan inta soo gabagabeyn doonaa maalinta Bastille soo gaaray taariikhdan documentary ahaan ayaan uga sheekeynayaa documentary ahaan waxaan uga sheekeynayaa meelaha qadiimiga ah amba waxyaabaha wadanka caan ku yahay inaan soo gudbiyo marka waan filayaa barnaamijkan inaad ka hesheen haddii aad ka hesheen barnaamijyo noocan ah in bariis isoo gudbiya si barnaamijkaas aan idinkugu soo bandhigo oo waxyaabaha aad jeceshihiin hadda dadka qaar ay weydiin kow luulyo lama dhigin haddii la dhigi lahaa waan idin soo gudbi lahay hadda wadanka haddaan kow luulyo meelihii lagu dhigi jiray oo Soomaaliya ma joogno Faransiiskaan joogaa haddii aan joogi lahay wadankii waa idin soo gudbi lahay meelihii kow luulyo fagaarihii lagu dhigay iyo fagaarihii kowga maalinta xorriyadda gobolada Soomaaliya Somaliland fagaaraha maxaa la dhihi jiray beerta nabadda Soomaaliyana waxay lahayd daljirka dahsoon meelihii taalada dhagaxtuur oo kale hadda taaladan dhagaxtuur oo kale u dhigantaa nacam annaga xoogaa ma gaari karno laakiin way u dhigantaa taalada dhagaxtuur sababtoo ah waa meeshii halgankoodii ka bilowday kabacdi ayaga dhexdooda ayaa ishaystay gumaysi ahaan laakiin markii laga baxay haddana dagaalkii labaad adduunka bilowday Faransiiska saa ogtihiin waa la qabsaday dagaalkii labaad adduunka waa la qabsaday maadaama la qabsaday dagaal weyn ayaa ka dhacay kadibna wuxuu ahaa dagaalkaas mid Jarmalka uu ku soo qaaday iskaashaanbuursigii Jarmalka reer galbeedka sida ogtihiin Ruushka ayaa lagu jibiyay inta badan dalka Jarmalka haddana saas ay tahay dalka Jarmalka iyo wadanka Faransiiska waa labada wadan aad isku jecel way iskaashaanbuureystaan Yurub ay ku jiraan baarlamaanka Yurub ay ka mid yihiin wax kasto laga ariminayo Yurub ayay yani qayb ka yihiin gabadha hogaamisa dalka gabadha hogaamisa waxay samaysaa aad ayay u soo dhaweysaa marka barnaamij la qabanayo wadankan maalin dagaalka labaad adduunka dhamaaday way ka soo qayb qaadataa maxaa cadeyn kara inay yihiin dad isjecel oo Yurub weyn midowday iskaashi ay dagaalkii way ka tanaasuleen marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa galabta waa qalanjooda ku dhaafaysa maalinta Bastille tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkan la mid ah inta ku kulmi doono waa qalanjooda ku dhaafaysa guul iyo gobonimo